halkan oo ah deegaanka Gaacid ee gobolka Sanaag oo ah deegaan dalxiiseed ayaa waxa lagu casubay xildhibaanada golaha wakiilada gobolka Sanaag ee dhawaan natiijadooda ay shaaciyeen komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland waxaana halkan casuumadaasi xildhibaanadaasi ugu fidiyay xildhibaan Khadar Cali Xakiin oo ka tirsan xildhibaanada cusub ee golaha wakiilada Soomaaliland ee gobolka Sanaag munaasabada casuumada oo lagu qabtay deegaankan ayaa waxa ka soo qayb galay sidoo kale madax dhaqameed wax garad dhalinyaro haween iyo dadweynaha deegaanka ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay qaar kamid ah waayeelka wax garadka madax dhaqameedka iyo odayaasha deegaanka kuwaasi oo soo dhaweeyay xildhibaanadaasi isla markaasina halkaasi kula sii dardaarmay waxaan leeyahay xildhibaanada wakiilada dalkiini dadkiini Gaacid idinkoo isku mid ah baa joogtaan waxaan leenahay way idinku soo dhaweynaynaa wakiilada oo isku duuban oo hadhowto aanu ka filayno saas ugu duubnaan doonaan baan maanta halka kan aad iyo aad soo dhaweynayna waxaanu leenahay waa noo guul maanta xildhibaanadii gobolka Sanaag ka soo baxay golaha baarlamaanka oo isku duuban oo dhamaantood halka wada fadhiya guul baanu leenahay waa guul u soo hayatay gobolka Sanaag baanu leenahay waxa halka ay ka turjumaysaa in halka ay tawfiiq iyo isku duubnaan iyo dad midaysan ay yihiin nimankaas soo dhawaadaanu leenahay idina waa aragtaan dalkii iyo dadkii maadaama deegaamadii maanta saa isugu duuban tihiin waxaanu idinku ducaynaynaa kuwii anfaca dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda in Ilaahay idinka dhigo dhawaada baanu leenahay waxaan leeyahay sida ay isugu duuban tihiin inay isugu duubnaataan ilaa iyo inta meel kale ku tagaysaan sidaasaanu idinku boorinaynaa assalaamu ka soo jeedo xildhibaan Khadar Cali Xakiin inaanu halkan ku casuuno ku maamuusno ku sharafno xildhibaanadii ka soo baxay gobolka Sanaag reerku wuxuu leeyahay deegaan ballaaran buu leeyahay laakiin halkan waxaanu ku doornay halkan waa khasnadii reerka waxaanu ku soo casuunaa cidda aanu jecelnahay gobolka saa u quruxda badan iyo deegaanka saa u quruxda badan waxyaabaha la haray waxa kamid ah wadooyinka runtii inaad kula xisaabtantaan cidda ay khusayso wixii ay miisaaniyadda qaranka xaq ugu leenahay aad gobolkeena u soo dhicisaan horena dardaaranka waa la idin siiyay inkoo isku duuban waa inaad yeelataan xafiis midaysan oo xildhibaanada gobolka Sanaaga oo caasimadda ku yaala oo degmo kasta oo kamida meelihii la idinka soo doortay ku yaala oo baahiyaha iyo dhibaatooyinka jira ay dadku soo gaarayaan la idinku soo ururiyo anigoo ku hadlaya afka golaha deegaanka ee degmada Cergaabo annaguna waa midaysannahay waxaan u shaqayn doonaa degmada Cergaabo iyagaan kaga wakiilay afka aan ku hadlayo kuwa baarlamaankana waa wada shaqayn doonaa horumarka Sanaagna wuxuu ka bilaabmayaa sida ay xildhibaanada golaha baarlamaanku u midaysan yihiin waxaad tiin rag qoyaana waxaad tiin raggii hormuudka u ahaa maanta guud ahaan Soomaaliland oo dhan waxaanu idinka rajaynaynaa Soomaaliland waa la kala qoqobay gabi ahaan galbeed bay aaday maanta inaad idinku xaqii reer Soomaaliland gaar ahaan reer Sanaag inaad soo dhicisaan 12 xildhibaan baan idinka rajaynaa xisbiyo kala duwan baa ka soo baxdeen xisbi waliba xeer gaar uu leeyahay idinka hal xeer baa idinka dhaxeeya annagana inoo dhaxeeya waa xeerka reer Sanaag mid ah oo aad majraa u qabataan mustaqbalkeeda siyaasadeed mustaqbalkeeda dhaqaale iyo mustaqbalkeeda horumarba u dooranay sidii raggii horeba sheegay inay qarankana wax u qabtaan oo halka kaga beegan ay wax uga qabtaan gobol Sanaagna ay wax u qabtaan golaha wakiilada ee laga doortay gobolka aqoonta aanu qabo iyo aragtida ay muuqata ee aan ku arko ama u muuqata ama habsami u socodkooda waa xulkii xalkii maaha waa xulkii Sanaag waxa weeye wax la idin oran doonaa yaa isku soo kiin daray wax idinka horeeyay runta marka laga hadlo golaha wakiilada iyo guurtidaba reer Sanaag cidda ugu jirta ma ahayn cid ka soo baxday waajibkii la faray waxaanu rabnaa oo la idinku dardaarmaya inaa waajibkiina ka soo baxdaan kaliya u mahad celinaya sida sharafta leh ee deegaanka loogu soo dhaweeyay ee qiimaha iyo qaayaha leh ayaan ka mahad celinayaa wadadii tabca waa aragteen qorshaha ku darsan xildhibaano wadada tabca waa aragteen halka soo marteen rafka halka inanta ku umusha ama fool qaada bartaasan rabka ka qaadnaa oo halkaas laga la baxaa ina qorshaha u horeeya marka halka ku noqotaan
baanu idinka rabnaa inaad nala dhaqaajisaan geestooda waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada cusub ee golaha wakiilada ee halkan lagu casumay waxaana ay sheegeen in wixii dhinacooda ay dadaali doonaan iyagoo iska kaashanaya horumarka gobolka Sanaag taas waa ka howlgelayaa ballankayga tahay in wadada aan hagaajiyo hareed ka soo dhacaysa ilaa imanaysa gaacid imanaysa wadada waa ka howlgelaynaa awoodayadan saaraya idinkuna waxaad ku talagelaysaan inaad shaqaalaha iyo naftaba u hurtaan amniga haddii aynu gacmaha iska qabsanno inta kalena waa keenaynaa waana helaynaa waxaa loo baahan yahay xildhibaanadeeda oo keliya inaan lana oran gobolkii horumarkiisii keena laakiin waxaa loo baahan yahay cuqaasha iyo dadkuba inay nagala shaqeeyaan waxa weeye horta dardaaranka waanu qaadanaa insha allah laakiin waxay ogaataan dawladahan isaga keen dambeeyey markay bulshada furfurayaan meesha keliya ka furfuraan waa madax dhaqameedka baanada keliya ee dadka loo isticmaalaa waa madax dhaqameedka marka annagu waan sadkaynaynaa yaan idinku baanadha noqonina annaguna haddii la yidhaa hadalkaygu isku dubnaanaya 12 xildhibaan waxaan ku ballan qaadnay inaanu gobolkan ku soo noqnoqonayno aananu ka maqnaanayn waxaanu ku ballan qaadnay inaan xafiis ka furanayno aanu si joogto ah dadka xiriir ula yeelano haddii la yidhaa waxaan ballan qaadanaa inaan ka shaqayno oo aan ku shaqeeyo oo la shaqeeyo xildhibaan Khadar iyo maxaa xildhibaanada kale ee gobolka ka soo jeedaba tan iyo meelaha kale ee gobolka ka tirsanba baahiyaadka ay leeyihiin annagoo priority kala siinayna keeba ugu muhiimsan hadday waxbarasho tahay hadday caafimaad tahay haddii ay waddo tahayba aad iyo aad baan inta isugu hawleynaa maxaa la marka waxaan ku talin lahaa waxaa jira wadamo badan oo hadda waddankeena dalxiis iyo shaqaba u yimaada hay'ad badan baa inala degan haddaynu wadada hagaajisan lahayn waxay noqon lahayd goob dalxiis oo indhaha dadkana soo jiidata soo noqdo runtii waa meel mudan inaan la suqa yaraysan gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay xildhibaan Khadar Cali Xakiin oo ah xildhibaanka fidiyay casumaadda deegaankan xildhibaanada loogu sameeyay waxaana uu sidoo kale sheegay inuu geestiisa diyaar u yahay wixii waxqabada ee guud ahaan bulshada gobolka Sanaag loo qabanayo baarlamaanka madaxweyne wax faragelin ah ku sameey fursad si baarlamaanka 82 xildhibaan soo baxay fursad si wax haba yaraatee laalusha hawla iman wax haba yaraatee corruption hawla iman wax haba yaraatee faragelin aad ku samaysaa madaxweyne jirin 82 ka sida fursad ugu siisay waxaad u daysaa ciday inay doortaan cidii hogaamin lahayd haddii aad jujuub ku samayso haddii aad ku jibaarto haddii aad ku khasabto cid aanay doonistooda hore ahayn inay doortaan taasi waxay wax weyn u dhimaysaa waxqabadka baarlamaanka la doortay 82 ka ma ilaawi karo inaan u mahadnaqo dad badan oo iska garab taagay Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Saab TV Ergabo